Ethiopia iyo Masar Soomaaliya ma isku haysan kartaa heshiiskii Ankara Declaration waxa ka dambeeyay arimahaas oo idil waxa isha ku hayay oo ila falanqeynaya wariye Xasan Cadde oo aan ku soo dhaweynayo qadka telefonka soo dhaw wariye Xasan Cadde intaas kadib guud ahaan arimahan talaabooyinkan ay Soomaaliya kaalinta ku leedahay ka soconaya gobolka hadii la eego Ethiopia iyo sidoo kale Masar heshiiskii Ankara maxaa lagu tilmaami karaa intaba aad baad u mahadsan tahay kaarteye runtii heshiisyadan isdaba joogga ah ee saddexdii bilood oo ugu dambeeyay ka soconaya magaalooyinka Qaahira, Eritrea iyo magaalada Addis Ababa waa mid ay dawladda Soomaaliya doonayso in ay ku yareyso xiisadda Ethiopia waayo Soomaaliya waxa ay rabtaa in ay iyada oo eegaysa xiisadda u dhaxaysa dawladda Masar iyo dawladda Ethiopia haddana aysan ka maarmaynin inay xiriir la samaysato dawladda Ethiopia oo runtii galaangal badan ku leh dhinaca maamul goboleedyada marka arrintaasi waxa ay keentay in siyaasadaha kala duwan ee geeska Afrika marka loo fiiriyo ay faragelin badan ku yeeshaan dawlado badan oo ay ka mid tahay dawladda Masar waxa kaloo jira Turkiga oo dana gaar ku leh dhinaca geeska Afrika isaga laftirkiisu in xiisadan uu rabo in la qaboojiyo maadaama labada wadan uu xiriir la leeyahay laakiin tusaalaha ugu fiican ee arrintan laga dheehan karo waxa ay tahay dawladda Soomaaliya ee uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxay ilaalinaysaa wadamo aan israbin tusaale marka ay wafdi u dirayso magaalada Addis Ababa waxa ay isla markaasi wafdi u diraysaa magaalada Qaahira oo labada wafdina hal mar ay wada tagayaan halkaas mar oo ay wada tagaana waxa ay ka wada hadlayaan hab isku mid ah inkastoo Soomaalidu ay inta badan magaalada Addis Ababa iyadu u badan tahay wafduda Soomaalida ee tagaysana ay aad u badan yihiin waxa halkaasi daliil kuugu ah in dawladdu ay danaynayso in xiriirka Ethiopia iyo Soomaaliya uu wanaagsanaado si looga baaqsado dhibaatooyinka faraha badan ee siyaasadeed ee amni darro ee kaga imaanaya hadda waxaad arkaysaa in madaxweynihii Soomaaliya ugu dambeyntii uu tagay magaalada Addis Ababa sida aad warbixintaadiiba ku sheegaysay labadooda warmurtiyeedka ka soo baxay marka la eego waxa uu si buuxda u sheegayaa in labada wadan ay dhinaca diblomaasiyadda dhinaca siyaasadda dhinaca amniga ay ka heshiiyeen inkastoo heshiiska labaad magaalada Addis Ababa u imaanayo Abiy Ahmed waa gartay waxaa jirta in haddana Masar iyo Eritrea iyo Soomaaliya Qaahira maanta wasiiradooda arrimaha dibadda ay ku kulmeen warmurtiyada ay soo saareen oo ku xusnaad in shirkaas wajigiisa kale lagu qabto magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka dhinaca Ethiopia shirar noocaas ah ka socda dhinaca Masarna waa ka socdaan marka Qaahira iyo Addis Ababa Soomaaliya dhinacee ayay u badnaan doontaa hadda sida muuqata ciidamadan awsam ee wadanka Soomaaliya imaanaya marka labada wadan la eego wadana ciidamo ayuu keenayaa lugta ah wadana wuxuu bixinayaa tababar dhinaca cirka ah tababar dhinaca maaragtay ciidamada kala duwan loo sameyn doono ayuu imaan doonaa marka laakiin siyaasadda muuqata waxa ay tahay Cumar waxa ay tahay in waxaad arkaysaa in xataa dawladda marka ay ka hadlayso arrin Ethiopia inay iyagii sidii dad kala hadlaya amal ay u kala hadlayaan iyadoo is ogtahay dawladda Soomaaliya ayaad waxa arkaysaa wasiir fiqi oo soo hadlaya wasiir Ali Balcad oo soo hadlaya taasina dadku ay ku wareersan yihiin oo leeyihiin maxay tahay waa siyaasad loo dheelayo ama macnaha la rabo dhinaca Masarna in aysan maaragtay meesha ka bixin dhinaca Ethiopia horta meesha inaysan ka bixin laakiin waxa intaas dheer runta marka la sheego hadda waxa jira siyaasiyiinta waaweyn ee Ethiopia marka ay hadlayaan waxa ka guuxaya Ethiopia sheegan waxaana ay leeyihiin annagu hadda ninkan hadda ugu dambeeyay sarkaalka bixinaya waraysiga bixinaya waxa uu leeyahay annagu dekad aan leenahay aan rabnaa waliba hal dekad ma rabnee 5 ilaa 6 dekadood aan rabnaa uu leeyahay oo aan leenahay
annagu aan ka talino markaad aragto siyaasiyiinta Ethiopia markastay hadlayaan sidaasay ku hadlaan dhinaca Soomaaliya fiiri markasta oo siyaasiyiintu hadlayaan waxa ay leeyihiin Ethiopia inay guumaysatay rabaan Ethiopia dhulkaanay rabaan dawladii cambaareenayaan dawladii dhulay siisay leeyihiin marka labada siyaasiyiin labada shacab waxyaabaha ka kala guuxaya marka aad aragto waa reality-ga meesha yaala waa maaragtay rag badan oo ka mid yihiin siyaasiyiin runtii magac kule wadanka Soomaaliya oo aalada Twitter-ka runtii wax badan ku soo qoray waxa ay sheegeen in Soomaaliya iyo Ethiopia labaduba ay maaragtay laba damac oo kala duwan ay leeyihiin shacabka Soomaaliyeedna ma rabaan dhulkooda inta ka laga qaato Ethiopiana waxay leedahay bad aan ahayn badda Soomaaliya kuma qanacsani ayay leedahay waaya marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aasha ugu dambayso dabcan madaxweyne xasan sheekh caawa ama galabtaba Addis Ababa gaaray heshiisay gaareen asaga iyo Abiy Ahmed oo ah in heshiiskii Ankara Declaration la sii dhameystiro gudina laga soo saaro marka falcelinta arintaasi ka dhalatay bulshada Soomaaliyeed ma u muuqataa in Ethiopia ay dabcan oo shalay madaxweynuhu u dhahay waa cadawgeena koobaad maanta ay saaxiib Soomaaliya la noqon karto ma muuqato sida siyaasiyiinta iyo shacabku ay qabaan sababtoo ah dawladda Ethiopia danaha ay leedahay waa mid ka weyn midda hadda heshiisyada ku qoran oo dawladda Ethiopia marna in dawladda Soomaaliyeed ay dhalato oo xoog badan marna ma rabto waa sida xaqiiqada ah ee siyaasiyiinta iyo shacabka Soomaaliyeed ay qabaan laakiin dawladda Soomaaliya way ku qasban tahay fiiri dawladihii wadanka soo maray madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa la socotaa si uu u xiro wadooyinka ay Ethiopia ku yeelanayso Puntland Jubaland maaragtay Koonfur Galbeed Hiiraan soo u yareeyo waxa uu heshiis la samaystay dawladda Ethiopia heshiis la samaystay heshiiskaasina waa un mid ayada maaragtay siyaasadeeda la isaga celinayo dawladda xasan sheekh hadda waad arkaysaa hub badan ay soo gelinaysaa Jubaland ay gacan siinaysaa marka dawladda Soomaaliya waa mid ay ku qasban tahay in Ethiopia heshiis la gasho maadaama awood badan oo markaasi dalkeeda dhan cir iyo bad iyo dhul ay ku difaacatay aysan ayay rabtaa laakiin Ethiopia mar walba way ka duwan tahay waxayna rabtaa inay access fiican u hesho badda Soomaaliya wadanka Soomaaliya gudihiisana inaysan ka bixin ayay rabtaa marka sidaa bay ku kala aragtooyin waaya aad u maasan tahay waan u mahad celinayaa waxa uu ahaa wariye Xasan Cadde oo ila falanqeynayay arrimaha la xiriira Soomaaliya Ethiopia iyo Masar yaa dan ugu jirtaa sidoo kale talaabooyinka dhinacyada ay qaadayaan la xiriira in ay heshiisyo la sameeyaan dawladda Soomaaliya in ay heshiisyo la sameeyso ama ay la gasho Ethiopia iyo sidoo kale Masar colaadahani waxa ay naga bi'inayaan dibkay noo geysanayaan kaliya maaha dib dunyawi ah iyo adduunyo iyo dawladnimo kaliya ma ayadoo dib bay noogu filantaa aakhirana waxa weeye waa arin lagu baaba'ayo oo maxaan ku raahdaa meel xun lagu tagayo sida diinteena xaniifka noo sheegtay nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam kullu dhanbin asa Allahu an yaghfira illa man mata mushrikan aw mu'minun qatala mu'minan dambi kasta oo bini aadan uu galo ama si fardi ah ama jamaaca ah ama koox ah uu galo ilaahay wuxuu mudan yahay inuu dhaafo illa waxaan la dhaafaynin waxay tahay man mata mushrikan qof gaalnimo ku dhintay aw mu'minun qatala mu'minan ama qof mu'mina ee dilay qof kale oo mu'mina mutacammidan si kas iyo ulakac iyo ulajeedo u dilay hubka uu aruursaday dhaqaalaha u bixiyay duulaan maxaan ku raa isugu dubariday dad ay ku leedeen waxyaabaha aan ilaahay u dhaafaynin ayay maaragtay kamid tahay waana arimaha jaahiliga nabigana uu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu yiraahday man qatala tahta raayatin amiyya qofkii ku dagaalama raaya ama calan jaahilnimo ah oo hadaf iyo ulujeeda iyo xaq iyo sharci aan ku socon hoostiisa qofkii ka dagaalama ويغضب لعصبية قبيالة درتيدنا أعروضة أو يدعو إلى عصبية أما قبيالة دتك أغيرة وينصر عصبية أقرقارة قبيالة أقرقارة فقتل أمريكا لقدله فقتلة جاهلية وغيري
jaahilnimo ah ayuu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam jaahilnimadan waa wixii islaamka ka horeeyay oo islaamku uu shaqo ku leeyahay marka waxa weeye horta dadka dagaalada hurinaya iyo dadka ku jira ha loo sheego waxay ka shaqeynayaan inay tahay adduun iyo aakhira seeg inay tahay in loo sheego way mid labaad walaalayaal anu ra'yigayga waxay tahay maadaama dib weyn ay dagaaladaasi nagu hayaan oo ayna dumiyeen inaan horta helno hay-ad xalinta khilaafaadka ah u gaarka ah ama haddaa rabta heer wasaaradeed gaarsii ama guddi qaran dheh ama hay-ad maxaan ku rahdaa xalinta khilaafaadka dheh oo arrintaasi shaqadeeda iyo wadiifadeeda ay tahay horta in la helo midda labaadna shirarka halkan lagu qabto waa wax wanaagsan laakiin meeshii looga baahnaa ma aha hay-addaasi inay yeelato hay-ado kale oo maxalli ah dadka meelaha colaadaha ay ka jiraan ay ka soo noqnoqdaan degan in laga qabto dadka deegaanadaas jooga culumay leeyihiin cuqaalay leeyihiin aqoon-yahanay leeyihiin laba beeloo kastoo wada degta oo dagaal dhexdeeda uu ka soo laalaabtay in laga qabto dad isku dhafa noocaasa maamulka ay leeyihiin maxaan ku rahdaa maaragtay uu ka shaqeeyo hay-adda qarankana ay isku xirnaadaan annagayna qusaysaa dhaqankay toos u qusaysaa intaan wasaaradda arrimaha gudaha inta ka codsano inay hoolal noo kirayso oon ka hadalno si meeshaas loo aadi lahaa ajendihii iyo barsiijarka annaga inta keensano xalinta khilaafaankaas sidii loo xalin lahaayna maskaxdeena aan tuujino wasaaradda arrimaha gudaha aan ka codsano meelihii aan ku shiri lahayn iyo imkaaniyaadkii kabacdina aan guddiyo iska soo saarno shanta Soomaaliyeed aan ku fadhinaa min 10 iska soo saarno 50 qofood oo xul ah oo sulxo khayr kasta meel kastoo adduunka joogto diyaarad u raaci kara oo garoobo tagi kara laascaana tagi kara cirgaabo tagi kara baybakol tagi kara jubbooyinka tagi kara meel kasta tagi kara horta annaga iska soo saarno oo dalkan aan u dhimirino dalkaani koofida annaga waaye aqliga annaga waaye yaan dawladda wax ka sugin dadka diriraaya annaga dawladda dhalnay oo gabdhaha iyo wiilasha qurxoon ee siyaasiyiinta horteena fadhinana annaga dhalnay aan hawsha fududeyno ee kaalinkeena aan qaadano ee yaanan sugin maalin kasta inay wasaarad noo yeerto inta soo libisano hool soo fadhiisano ee meeshaan war fiican aan ka sheegno taas horta odaasha dhaqanka leh Soomaalidu waxay tiraahdaa gooskaaga iyo xoolahaaga iyo xikmadaada isbaray tiraahdaa maamul goboleed haddaad fiirisaan oo dowlad qara fiirisaan aad wax ka sugtaan waxaad dayacdeen doorkaad leedeen ninkii doorkiisa dayacana waa laga qaadanayaa marka doorkiina soo ceshada si nabada ku soo ceshada dadka siyaasadda iyo waxa aan dadka anficin ku dhex wada inaad la dagaalantaan oo af kula dagaalantaan oo dadka ka qaadataan adinkaa iskale doorkiina waaye intii idinku saacidaysana waa uga mahad celinaysaane doorkiina inaad gudisaan adinkala idinka rabaa intaas waxaan rabaa inaan intaas uga baxo wasaaradda arrimaha gudaha iyo aqalka sare iyo agaasimaha gobolka banaadirba waxaan rabaa inaan soo jeediyo dagaaladu way socdaan meel kastoo dagaalku ka socdani dib u heshiisiinta iyo dadaalkii nabdeedna ka socdaan waxaan idin dhihi lahaa oo idin soo jeedi lahaa dadkaas dadaalka ku jira oo hawsha gacanta ku haya oo cawayo maalin u dhifraaya oo meesha ay ka xanuunsan yihiin yaqaana oo waxaa laga saacidi kara sheegi kara talada weydiiya taladu waa dhiman tahay intaan dadkaas la arag akhyaarta duubabka oo dadaalka faraha badanna wadda waa mahadsan yihiin waa dadaaleen dan meelay ku celisay joogaan waa dhiman tahay dadka voluntariga oo shaqaynaya oo meel kastoo dagaal ka socda gacanta dagaalka kula jira dagaalada socdaa isma leh halba waxaa u daawaa wasaaradda
iyo haddii alla kuruux inta ku howlanuna waxay xaq u leeyihiin inay ogaadaan meel kasta waxa ka jira war nimanka lacagaha haysta ee ganacsatada iyo siyaasiyiinta lacagaha haysta ee maaliyaddu ay dhulka ka boobay ha ka daayaan dadka ay hubaynayaan shacabka ay hubaynayaan ha ka daayaan annagu waxaan qabnaa inay ka joojiyaan dawladdu ka dagaal gasho odayaashu ka dagaal galaan wacyigelin laga sameeyo ninka xoolihiisa qoryaha ku bixinaya ninka maxay ahaydaan rasaasa soo gadaya ninka beesha hubaynaya ha laga qabto haddii kale weligeed dagaal ma joogsanayo annagu taan qabnaa waa taas haddaan odayaashii nahay annagu af baan haynaa waan soconaynaa tabliiq waan noqonaynaa meel kasta waan maraynaa laakiin nin wadaad baa waxa la yidhi annaga yaa bersha cali jawhar baa la odhan jiray nin kaloo annaga khawaajo naga noqdo khawaajo nidhoo diinta kiristanka qaatay ayuu taga wuxuu yidhi war hebelow nin wanaagsan baa tahaye inaad aroma diinta islaamka iska haysato guud sheekhow intaa adi tidhaad wacdiday sheekh kalaa iga kaa horreeyo intaa in ka badan buu yidhi markaa waa la iga ka horreeyay raallihagu odaygu dhaqanka wuxuu ku hadlaaya uu leeyahay war waxaan iska daaya waxaan waa wuxuna joojiya dagaalka joojiya war qaata ilaa sheekh baa ugu horreeyo waxa ugu horreeyay nin leh war beel ahaan baan u muuqanaynaa haddaynu wax dilay haddaynu dagaalanay hadday waxna samaynee wax dila oo dagaalama oo reer hebel ku duula oo waxan sameeya markaa ilmaada reeyaalow meesha waxay u baahan tahay ee hadalka waan badiyay raalliga ahaada waxay u baahan tahay dadka wax weynaya in la qabtay u baahan tahay